waan dhowrayaa oo waan dhisayaa war waan dhowrayaa oo waan dhisayaa dhanka aan haye Soomaalidu dhammaan dadkii waxay rabtaa wuu dhimanayaa Soomaalidu dhammaan dadkii waxay rabtaa wuu dhimanayaa war wuu dhimanayaa. Soomaalidu boqolkiiba boqol waa kuwa Shaafici ah oo huwan madhabka Shaaficiga, sidoo kale waa dad ay diinta Islaamku soo gaartay inta aysan gaarin Madiinatul Munawwara. mana jirto mana laga soo helayo taariikhda dad Soomaaliyeed oo seef lagu islaamiyay, waxayna tani daliil u tahay qiyamka iyo garaadkii ay xambaarsanayeen awoowayaasheen. Carab iyo Afrikaan gabadhii ugu horeysay ee diyaarad duulisa waa duuliye sare Asli Xasan Cabaade. sidoo kale Imaam Axmed Gurey waa hogaamiyihii ugu horeeyay oo Afrikaan ah ee adeegsada madaafiicda dagaalka, waana halgamaaga koowaad ee furtay cagtana mariyay boqortooyadii Xabashida, wuxuuna qabriga Nabiga sallallahu calayhi wasallam uu ka difaacay isbahaysi ka dhaxeeyay Xabashida iyo Boortaqiiska, kuwaasi oo doonayay inay qabsadaan magaalada Madiina sidoo kalena qaataan qabriga Nabiga. magaalada Taleex waa goobtii ugu horeysay ee ku taala qaaradda Afrika oo ay ciidamadii Ingiriisku ku duqeeyeen diyaaradaha dagaalka, waxaana xusid mudan in sarta ama qalcadda Daawad iyo Taleex in lagu dhisay caano geel, taasoo keentay in dhismuhu raago waqti dheerna uu jiro. dadka Soomaaliyeed waxaa taariikhda ugu qoran inay ku jireen dagaalkii ugu dheeraa kaasoo socday 700 sano, ayagoo u geeda fuulayay marna u gurguuranayay boqortooyadii Xabashida. ganacsatadii hore ee Soomaaliyeed waxay ahaayeen kuwo la maamuuso oo loo sara kaco markii ay tagaan dhulka Carbeed, ayagoo loo arkayay inay yihiin kuwo ganacsiga hibo u leh sidoo kalena u saaxiib ah dhul hodana. waxayna mar fadwoodeen culimada Soomaaliyeed in xoolo sadaqa loo diro dadkii ku noolaa dalka haatan la yiraahdo Sacuudiga. badka ama masaaxada dhulka Djibouti waxaa lagu qiyaasaa 23,200 kiiloomitir isku weeran, tirada dadkana waxaa lagu qiyaasaa ku dhawaad 1 milyan oo ruux. Soomaalidu boqolkiiba 60 ayay tahay halka Canfartu tahay boqolkiiba 35. waqooyiga waxaa ku badan Canfarta halka koonfurtu ku badan tahay Soomaalida. 1862 ayuu gumeystihii Faransiisku ka soo degay oo uu qabsaday xeebta Obakh ee ku taala waqooyiga Jamhuuriyadda Djibouti, kadibna wuxuu 1885 u sii wareegay xeebta magaalada Djibouti, wuxuuna Faransiisku Djibouti kolkaasi ku magacaabay dhulka Soomaalida ee Faransiisku gumeysto, taasi oo ku cadeynaysa in cidda Djibouti loogu yimid uguna tunka weyn inay tahay Soomaalida. dalka Djibouti wuxuu xorriyadiisa ka qaatay Faransiiska June 27, 1977, waxaana madaxweynihii ugu horeeyay ee Djibouti noqday Xasan Guuleed Abdidoon. Djibouti waxay ka kooban tahay 6 gobol oo kala ah Cali Sabiix, Carta, Obakh, Dakhil, Tajarrah iyo Djibouti oo ah caasimadda isla markaana ay ku nool yihiin boqolkiiba 70 dadka reer Djibouti. inta aan Carta gobol laga dhigin sanadkii 2003 gobolka Dakhil wuxuu xuduud la lahaa gobolka Djibouti. luuqadaha rasmiga ah ee dalka looga hadlo waa Soomaali, Canfar, Faransiis iyo Carabi. boqolkiiba 94 dadka wadanka ku nool waa muslimiin halka boqolkiiba 6 aysan ahayn muslimiin. dastuurka wadanka u yaalana wuxuu qabaa in dalku yahay dal Islaam ah. magaalada Berbera waxaa markii hore loo aqoon jiray Malawo, waxaana qarnigii 19aad horaantiisii ilaa dhamaadkiisii magaalada Berbera dadka deganaa ay u badnaayeen Carab iyo Hindi. saxaraha ama banka ugu weyn ee dhulka Soomaalida wuxuu dhacaa xadka u dhaxeeya Djibouti iyo Soomaaliya ama Somaliland. Djibouti waxaa dhaca Baabul Mandab oo ah mid ka mid ah qadadka ugu saxmadda badan xagga maraakiibta, waxaana maalintii ka talaabta 4 milyan oo barmiil oo shidaal ah. magaalada Saylac waa mid loo aqoonsan karo inay tahay magaalada ugu qadiimsan dhulka Soomaalida. waa magaalo xeebeed taariikhi ah oo ku taala gobolka Awdal, waxaana xaqiiqa inay jirtay qarnigii 1aad. Saylac waxaa loo aqoonsan yahay inay jirtay ka hor diinta Islaamka, ayadoona ka mid ah goobaha ugu taariikhda dheer qaaradda Afrika. waxaa laga soo xigtay sahmiyaal Roomaan iyo Giriig ah in qarnigii 1aad Saylac dhisnayd, isla markaana lahayd maamul iyo hoggaan heer sare ah. tan iyo horaantii soo bixitaankii diinta Islaamka, magaalada Saylac waxay caan ku ahayd waxbarasho, ganacsi, dhaqan, ilbaxnimo iyo maamul boqortooyo. qiyaastii qarnigii 7aad ilaa 8aad ayay diinta Islaamku ku soo fiday magaalada Saylac oo waqti kooban ku noqotay hoyga diinta ee guud ahaan qaaradda Afrika iyo gaar ahaan gobolka Geeska Afrika. bartamihii qarnigii 9aad ayay magaalada Saylac waxay aasaas iyo saldhig u noqotay bilowgii boqortooyadii Adal, midaasi oo ka talinaysay ilaa qarnigii 14aad. waxaa la sheegaa in masjidkii ugu horeeyay ee Islaamka in laga dhisay Saylac, isla markaana ay dhiseen saxaabadii soo hijrootay ee ka soo degtay Saylac.